wafdi ka socday guddida cadaaladda Somaliland ayaa markii ugu horeysay soo gaaray magaalada Laascaanood. wafdigan oo ka koobnaa ilaa 6 xubnood iyo guddoomiyaha guddidaasi Shawqi Cali Cilmi ayaa shir la yeeshay maamulka gobolka iyagoo ka wada hadlay xaaladaha deegaankan oo ay soo wajahday biyo la'aan iyo abaar aad u daran. intaasi kadibna wafdigan ayaa u gudbay dhinaca xarunta maxkamadaha magaalada Laascaanood oo ay shir waqti dheer qaatay ay kula yeesheen mas'uuliyiinta maxkamadaha iyadoo warbixin dheer oo halkaasi ku siiyay guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sool Ibrahim Axmed Muuse. afhayeenka guddidaasi ayaa warbaahinta uga warramay socdaalkooda isagoo sheegay inay u kurgalayaan xaaladaha maxkamadaha iyo siday u shaqeeyaan. isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxa socodka iyaga iyo ujeedadan u soo ambabaxnayna uu ahaa wali la yahay kow inaan u kurgalo waxa weeyaan hawshka ama waxa weeyaan maxkamadaha hawlaha qaabka u hayaan yani degmo kasta oo ay maxkamadu ku taalo waxa ku talgalka iyagu yahay intii aanu soo maray iyo inta noo hadhanba inaanu dalka haddii alla ku dhammaystiro. hawlgalka iyagana waa kii ugu horreeyey waa markii ugu horreysay ee gudda cadaaladeed oo heerkaas ah ay dalka dhammaantii ku tala gasho in ay ku soo kala bixiso safar xog raadin ah iyo qiimeyn ah. maxkamaduhu ma hawlgalan oo ujeedadii loo aasaasay ma ka hawlgalan, garsoorayaasha iyo guddoomiyaasha loo magacaabay mid waliba xaruntiisii ma ka hawlgalan, qaabka wada shaqayneed ee u dhaxeeya waxa weeyaan maxkamadaha booliska iyo jeelasha intaasoo degmo teebaan lahayn jeel, teebaan lahayn saldhig, teebaan lahayn maxkamad. isku soo wada duub ay maatinka guddidan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay ku xidhan yihiin saldhig ka mid ah magaalada Laascaanood ilaa 5 oday oo isugu jira cuqaal iyo waxgarad loo haysto gaari ay lahayd maxkamadda rafcaanka oo dhawaan laga kaxaystay magaalada. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Home Cable TV, caasimadda gobolka Sool, Laascaanood.